tani afgambigii ka dhacay dalka Mali sanadkii 2021 wuxuu ahaa mid wajahayay qalalaase isugu jira mid amni iyo mid siyaasadeed maadaama maamulka dalkaasi uu gacanta u galay hoggaan militari oo hormud u yahay Assimi Goïta ayaa waxay keentay in dalkaasi waayo xasilooni gudaha ah iyo dibadda xiriirada caalamiga markii talada iyo xukunka dalka Mali uu si buuxda ula wareegay hogaamiyahan militari ee Assimi Goïta waxa uu khilaaf soo kala dhaxgalay dawladda Faransiiska oo muddo joogis ku lahayd dalkaasi Mali ciidamada ay ka joogeen khilaaf kadib Assimi Goïta ayaa xiriirka u jaray Faransiiska isagoona ugu dambeyn ku amray inay isaga baxaan dalka Mali kadib kala tagoodii Faransiiska hogaamiyahani ayaa u jihistay dhinaca Ruushka isagoona xiriir toos ah la yeeshay dawladda Ruushka dawladda Mali oo taageero militari ka heli jirtay ciidamada Faransiiska ee ku sugnaa dalkaas ka hor intaanay si buuxda uga bixin sanadkii 2022 waxay keeneen inuu gaabis ku yimaado howlgalladii militari oo kala qayb qaadanayeen ciidamada Faransiiska si kastaba Mali oo wajahaysa qalalaase amni iyo mid siyaasadeed ayaa xiriirkeeda Ruushka wuxuu keenay inay taageero militari ka hesho dawladda Ruushka kadib markii ay dalkaasi ka howlgelisay kooxda African Corps kooxdii Wagner Group oo ciidamo si toos ah u hoostaga taliska militari ee dawladda Ruushka dhamaadkii bishii Abriil sanadkan 2026 waxaa dalka Mali ka dhacay weerar culus oo si wadajir ah u qaadeen ururada Janim iyo Zawad weeraradan ayaa sababay in kooxahan ay qabsadaan dhul balaaran isla markaana ay cabsi iyo qalqal ku abuuraan caasimadda Bamako ee dalkaasi Mali weeraradan ay sida wadajirka u qaadeen kooxahan ayaa sababay inay geeriyoodaan xubnooyin muhiim u ahaa maamulka militari ee dalkaasi Mali balse shakhsiga ugu saameynta lahaa ee weeraradan ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa wasiirkii gaashaandhigga dalkaasi Sadio Amara kadib dalkii wasiirkii gaashaandhigga Mali dhamaadkii bishii hore Abriil sanadkan 2026 waxaa hogaankii ciidamada dalkaasi la wareegay madaxweynaha dalkaasi Assimi Goïta kaasoo xilligan isku hayay xilka wasiirka gaashaandhigga iyo kursiga madaxweynenimo ee dalkaasi Mali warka arrintan la xiriira oo laga baahiyay telefishinka dalkaasi Mali ayaa lagu sheegay in wareegto soo baxday xilka wasiirka gaashaandhigga Mali lagu magacaabay madaxweynaha dalkaasi Assimi Goïta iyadoo lagu sheegay wareegtadan inuu hogaamiyaha dalkaasi uu xilkan wasiirka gaashaandhigga ka caawinayo taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi General Omar Diera khubarada siyaasadda ayaa ku fasiray arrintan la xiriirta in madaxweynihii dalkaas uu isla isagoo qabto xilka wasiirka gaashaandhigga dalkaasi inay tahay mid xiriir la leh isku dayada oo madaxweynaha dalkaasi uu ku xoojinayo awoodiisa maadaama ay u muuqato in amnigiisa halis uu ku jiro isla markaan uu dalkaasi ku jiro xaalada dagaal marka la eego dhimashadii Sadio Amara wasiirkii gaashaandhigga dalkaasi oo qarax ay ku dileen kooxda Janim dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay sidaan warbixinta ku sheegnay haddana tani ayaa ugu dhigneed madaxweynaha dalkaasi Mali rabaax culus oo ku dhacday maamulkiisii sababo la xiriiray in Sadio ahaa garab muhiim u ah sababaha uu muhiimka ugu arkay Assimi Goïta madaxweynaha dalkaas ayaa ahaa in Amara uu ahaa shakhsi aad ugu dhow siyaasadda muddo ku wada jireen sidoo kalena ahaa mid si weyn uga qayb qaatay garabna ku siiyay afgambigii uu kula wareegay dalkaasi Mali sanadihii 2020 iyo 2021 sidoo kale wasiirkii hore gaashaandhigga Mali Sadio Amara wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay in dawladda Mali iyo Ruushka xiriir wada yeeshaan isagoo si weyn uga shaqeeyay xiriirka hogaamiyay Assimi Goïta madaxweynaha dalkaas iyo Vladimir Putin sidoo kalena wuxuu fududeeyay in dalka Mali la keeno kooxda African Corps kooxdii la oran jiray Wagner Group dhinaca kale marka aan eegno kooxaha dagaalka kula jira dawladda Mali iyo weeraradooda ma ahayn kuwa bilowday dhamaadkii bishii hore ee Abriil balse dalka Mali ayaa wajahayay kooxahani marka aan ka soo bilowno sanadkii 2012 ilaa sanadkan 2026 kooxda hore ee magaceeda loo soo gaabiyo Janim ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa si adag dagaal ugu jirtay dawladda Mali iyadoo hadafkeedu yahay in Mali laga hirgeliyo dawlad Islaami ah kooxdan ayaana muddo badan gacanta ku haysa deegaano baadiye ah oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali iyadoo sidoo kale unugyo firfircoon ay ku leedahay agagaarka caasimadda dalkaas ee Bamako kooxdan ayaa dagaal xooggan kula jirta dawladda Mali iyagoo weeraro dhuumaaleysi ah ku qaada xiriyaha ciidamada dawladda Mali halka dawladda Mali iyana duqeymo iyo weeraro la beegsato goobaha ay joogitaanka ku leeyihiin kooxdani kooxda kale ee dagaalka kula jirta dawladda Mali ayaa ah falaagada Zawad falaagadan qaybta ka ahaa weerarkii dalkaasi gilgilay ee dhacay dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay Abriil ayaa ah falaago gooni u goosad ah oo dagaalkeeda la xiriira inay noqdaan dalka madax banaan Mali inteeda kale iyagoo doonaya in waqooyiga dalkaasi Mali uu noqdo dal gooni ah falaagadan ayaa iyana weerar ku qaada ciidamada Mali
iyo kooxaha ruushka ee ku sugan dalkaasi Mali. marka aan eegno hoggaanka falaagadan Azawaad ee hadda xiriir kale leh kooxda Janiim waa mid uu ka muuqdo adeeg xooggan oo la xiriira sidii ay marnaba ugu tanaasuli lahayn mowqifkooda ah in dal gooniha noqdaan oo ay Mali inteeda kale ka go'an. Algabes Agentela ayaa ah hogaamiyaha falaagadan dagaalka kula jirta dowladda Mali oo 54 sano jir ka soo jeeda qabiilka Tuareg loo yaqaan ee degan magaalada Kidal ee dalkaasi Mali. waxaana la tilmaamaa in ka hor sanadkii 2012 uu ka mid ahaa dowladda Mali wixii ka dambeeyay sanadkaasi 2012 ayaa waxa uu noqday mid qayb ka noqda kooxdan falaagada ilaa ugu dambeyn uu hoggaanka kooxdan uu la wareegay oo uu noqday hogaamiye kooxda falaagada ee Azawaad sanadkii 2024